الرحمن الرحيم قدوميها برلمانك دولة جولات كوفر قلب الصومالي أمباسطور بروفيسور علي سعيد فقي قدوميها محكمة صار دولة جولات كوفر قلب الصومالية وزير كي هوري بيرها أهنا لتليها دنكا سمفلكا بروفيسور محمد حسن فقي وزير كوحيجين كوزارة أرمها جودها دولة هوسيد بوشيسين دولة جولات كوفر قلب الصومالية ومرت الشرفة بعد الصحافة odayaasha dhaqanka ururka hooyooyinka ururka dhalinyarada bahda saxaafada dhamaan waxay ku salaameen salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd salaan runtii maanta waxay noo tahay maalin sharaf iyo maalin weyn waxaan ku soo dhaweynay alboorka degmada Baraawe wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane gudoomiye ku soo dhawow Baraawe adii tiimkaaga runtii Baraawe soo jeeday tiimka ururka hooyooyinka iyo ururka iyo odayaasha iyo ururka dhalinyarada dhamaan sida saaka 2 saac ilaa hadda adaymaan ay ku sugayeen runtii wax yar maana way naga soo daahday laakiinse alxamdulillah rabbil alamin ilaahay waa ku nabad keenay gudoomiye ku soo dhaw Baraawe kuna soo dhawow runtii meel laga jecel yahay waa Baraawe waa deegaankaaga sida ay u tahay mar badan ayaan filanay inaad maana noo imaadid laakiin waqtigii oo ku habooneeda noogu imaad mudane gudoomiye waxaan ku leeyahay soo dhawow waad maasantiin aad iyo aad u maasan alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam awla waxaan halkaan ka salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Ali Said Faqi iyo gudoomiyaha maxkamadda Maxamed Xasan Faqi wasiirkii hore beeraha odayaasha dhaqanka culamaa u diinka aqoon-yahanada bahda saxaafadda dhalinyarada haweenka ciidamada Amazon ciidamada daraawiishta nabad sugidda booliska militariga
كل وحن كسلام يا سلام السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كبعد runtii annaga mudana gudoomiye degmada Baraawe waad u jeedaa dadka joogo waxay jecel yihiin mar walba nabadda iyo horumarka marka waxay ku leeyihiin saako dhan way taagnaayeen waxayna u taagnaayeen si ay ku soo dhaweyn lahaayeen runtii dadka degmada Baraawe waxay ku horumareen soo dhaweynta marka mudana gudoomiye muhiimadda annaga halkaan aan u taaganahay waxay tahay inaan ku soo dhaweyno mudana gudoomiye soo dhawow degmada Baraawe ku soo dhawow adiga iyo wafdigaaga waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan annaga iyo maamulka iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan degmada Baraawe waa degmo fiican oo soo dhaweynta xaggeeda ku wanaagsan runtii waxaan ku leenahay soo dhawow odayaashii dhaqanka saaka ilaa hadda waxay u taagan yihiin soo dhaweyntaada mudana gudoomiye adiga iyo wafdigaaga soo dhawow aan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigii wafdigaygu waxaan halkan ka salaamayaa odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhalinyarada ganacsatada ciidanka booliiska militariga amisom iyo nabad sugidaba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaa ka warqabtiin magaalada Baraawe waxa ay tahay deegaan doorasho kii labaad markii Baydhabo laga soo reebo waa meesha aan filayno sanadkan maaragtay in doorashada dhammaan xubnaha shabeellada hoose dadka degan meeshaan inay doorasho kaga qayb gali doonaan marka taasna waxay fursad u tahay magaaladan furfurnaanteeda iyo jawigeeda maaragtay ganacsi iyo soo dhaweynteeda maaragtay ay fursad u tahay waxaan booqashaday waxay la xiriirtaa markii ugu horeysay inaan deegaanka aan ka warqabo aan soo ogaado xaaladda deegaanka xagga amniga iyo xagga mataqaanaa arrimaha bulshada inaan mataqaanaa aan isdhaafsano odayaasha aan la shiro dhammaan xubnaha bulshada arrimaha bulshada aan la shiro aan kala warqaadano aan ogaano maaragtay deegaankan siduu diyaar u yahay idinkana aan idinku dhiirigelino inaad maaragtay runtii aad soo dhaweysaan dad ilaa iyo 3,000-5,000 ka badan ayaa maaragtay degmadan imaan doona wixii doorasho xil soo raadsaday iyo wixii kale orgaaba waxaase ka warqabtiin beriyahan dambe waxaa socda wada hadal sidii deegaankan loogu dhisi lahay councilkaasoo ah kii degmadan maaragtay kor u qaadi lahay shuruudaha degmooyinka la dhexdhigay waxay tahay in haddii aad u baahantihiin in horumar wadooyin la idin dhiso iyo maaragtay wixii kale horumar in deegaanka uu lahaado maxaa la lahayaa council kaasoo maaragtay gabar iyo wiiliiba ay ka qayb gali doonaan ujeeddada councilka loo abuurayo waxay tahay ma aha dad iska baagamuunda ah la soo qaadi doono dad shaqeeyo markii loo baahdo 5 qofooda magaalada maamulaysa doorasho waay kuwaas inta kale markii loo baahdo 3 biloodba hal mar inay ka qayb galaan horumarka deegaanka ay ka warqabaan haddii mashruuc imaada la yiraahdo hay mashruucaas yimid waxaa la idinka rabaa mataqaanaa inaad ansixisaan waxaan ka sameynaynaa wadooyinka la dhisi doono waxaan ka sameyn doonaa haddii oo maaragtay iskool la dhisaayo guddigii go-aanka gagaari lahaa ee degmada horumarinteeda guddigaas waaye marka
kaasna maaragtay waa hoosheeda wadahadalkeeda wasiirkaab u jooga beryahan dambe. waxaan kaloo salaan idinkaga wadaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan laftagareen madaxweynaha oo isaga naftiisa kusoo wajahan meeshaan uu imaan doono goordhow hadduu ilaahay yidhaahdo inta aniga aan joogo uu imaan doono. marka degmadan sidaa ka warqabtiin waa magaalo madaxda koonfur galbeed oo Soomaaliya. waxaan rabnaa inay u ekaato magaalo madax, inaysan noqonin magaalo go'doon. airportkan inkastoo iska qaab daran yahay laakiin diyaarad ayaa timaado timaankii 2 mar 3 mar. marka taa nafteeda wada socodka iyo imaanshaha magaalada way fududeysay. marka waxaan isu heli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waqti waa sheekaysanayna dhammaantiin iyo inta hadda joogtay iyo inta maqanba maaragta ya. marka maadaama aad maanta oo dhan aad meeshaan fadhideen waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin. wabilaahi towfiiq iyo aragtideenni oo maartaqaanaa ama beri subaxdii ama wixii ka horeeyo hadduu ilaahay yidhaahdo. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.